السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال مركل كسر وهذا channel كي نحيسها وركا فملي حيسها وركا ميلو البعض شوكتنا وحيد لنا هاي عافمات كوارا ما أنت وحربنا أنا صاحبك عبد القادر عمر عبد الله بلينا فلنقينه وحيابه وحيسها بدنا سوشيال ميديا تضبط كان قاسة جور كالصومالي اسكو مشغول كوحلو يقانو هذا قادر سدو وهي كرت هذا وما سنتاي sidoo kale baad xiisaa wararkan waa salaamaya Nairobi ay joogan waqti wacan ayaan leenahay xilli ka sidin tahay way ugu dambeeyay marka aad eegto horta Soomaalida waxa laga dhigay ama ay noqotay ilaahay amarkiisa iyo abuurkii hore waa aqaane isku mashquul intooda badan sax maxay yeelay macna dhanka soo u dhaqaaqda haday tahay siyaasadda haday tahay macna dadka iska caadiga ah bulshada madax banaaneed hadii imaado in la guursado dhinac walba oo joogto waxaad arkaysaa inay yihiin dad macna la suray oo qorta isku jiro oo markaas rag iyo haweenba rag iyo haween dagaalkaas waxa ma leeyahay ila qiyaamaha inuu socdo macna watan oo loo dowday aan ku leeyahay marka inkastoo umada macna graf laga weyn macna oo markii guud ahaan la yiraahdo laakiin xogaa Soomaalida waxa moodaa in aad ugu safar dhuban yihiin macna jiidka is adeega macna soo dhigta marka inta badan waxa dhici jirta hore macna in eedan lagu jeediyo hada qof u kaliisa oo kala tusaale ahaan uu muddo qof iska jooga rag iyo dumar qof roodo ahaado waxa leeyahay maxaa kugu dhacay ma guursadid maxaa ku daaray say rabtaa hadii qofka uu guursado hada dhalisha imaanayso macnaha in fargelin lagu soo biyo qoyskii macnaha qofka ku maqalmin qofka macnaha isku xillimaada macnaha qofka dooqiisa laga hadlaa hada fargelin kala imaata qofka dooqiisa in la yiraahdo qofka macnaha sabta ugu samay tahay maxaa ku dhacay hadii dadkii muddo joogan maxaa wax u dhalaadiin oo kala tusaale ay iska imaanayso maxaa ku dhacay nasiibkaaga tijaabi kala taga hada la fargelin marka however si kasii ahaato hadii xitaa dhowr bilood kadib uur qaadayso halkan nasiib soo hadii xitaa waxa arka Cabdi Qaadir markii gabadha inta la guursado hore uur ay ka qaadi xitaa in lagu mashquulayo leeyahay hore macnaa isha horgal mu aha asaga ma laha miya hadana mashquulka meesha soo taagay balay marka problem way marka hada tusaale hadii aan bal mid soo qaadno waxa jirtay tawaadidii la soo dhaafay in aad loogu mashquulay nin Soomaaliyeed oo ku guursaday gudaha wadanka gaar ahaan waliba aroos aad u qurux badnaa oo miyi iyo magaalo inta badan aroosada waxa ka dhici jireen magaalada marka waa garawe iyo dawladkeeda ayuu ka dhacay arooskaasi marka inkaas waxa uu doortay inuu balmiigana ku guursado markii miyiga waxyaabo si qurux badan fardo iyo baabuur ayaa loo galbiyay meel aad u qurux badan keeba qurux badan arooska miyiga magaalada wallahi anaga markaan magaalada joogno waxa aad noo qurux badan kaas miyiga lagu dhigay inkastoo macnaha qofka deegaanka uu joogo markii loo bedelo macnaha uu xiiseenayo oo laakiin aad buu u qurux badnaa marka dhibaatada waxa ka dhacday waxa jirta in aad loogu mashquulay oo waliba farcilin badan laga soo biyay oo lagu eedeynay in ay yihiin dad xoog kala da'weyn inta badan macnaha wallahi gabadha uu ka weyn yahay gabadha waxa loo siiyay macnaha xataa lagu dambaabo oo qaarkood waxa leeyahay macnaha dan baa leeyahay dhaqaalaha waalidkooda ka rabaa gabadha waxa laga rabaa fursad dibadda inuu geeyo oo loo qato inuu qurbo joog yahay marka committee ilaa iyo kun ku dhow ayaa laga bixiyay boqolkiiba 8 marka waxa bixinaya waa gabdhaha eedeynaya ha wada macnaha ninkan gabadha macnaha aad ugu weyn yahay waliba dadkan oo dibadda jooga waxa ugu yeeraan jaal abuse in lagu qasbay iyada kama hadlin isaga waxa uu isaga waliba BBC da wareystay oo baanto la hadlay waxa uu sheegay in arooskaas uu doorbiday in bal uu miyi ku arooso bal waxa ayaga uga 15 umadan qaylinaysa ugu jiro waxa hadda inta badan waxa ay xiiseeyaan oo ay balaa ka dhigaan guurka dhexmara Soomaalida iyo ajaanibta xiiseeyaan marka hadda gabar Soomaaliyeed oo ajnabi uu guursado oo wada maraan ama garabka laga qabsado culays ma aha romantic laakiin laba qof caadi ah oo Soomaaliyeed hada garab isqabsaan ama wadada gacanta isqabtaan waxa leeyahay odayga habarta dhaqanka ku ciyaareen taas waxa u deynayna commentiga family xisaab markii wiil Soomaaliyeed uu gabar ajnabi garabka ka qabsado romantic hadii gabar Soomaaliyeed nin ajnabi garabka markay ka qabsato romantic la yiri bal hadii wiil iyo gabar Soomaaliyeed ee isqaba ay garabka iska qabsadaan ayagana loo qaatay inay dhaqankii ku dheeleen romantic aysan ahayn ayada naftirkeeda adinka idin deynay dhinaca commentiga markii xaaladu halka taagan tahay markii haye dhankii ragga oo la eedeeyay oo waxa la yiri macnaha gabadha uu ku weyn yahay Soomaaliya waxa dhacday gabar Soomaaliyeed inkastoo horena ay u dhacday ayaa nin guursatay
وحوجا أمور ذا إني كالنيريهن أو قبرت أي حوجا يرى عصلاتي النيرات حوجا ururka haweenka iyadoo ku jirtay wiil yar xoogaa wiil yar guursatay waa iga islartay wax barbaran kuma qabaan qoyskooda uu dhaqan yahay wax dhibaato ma jiraan ayana sidoo oo kale faraxsan oo ku faraxsan yahay isku faraxsan masal meesha joog laha ma joog lahayn wax cabasho soo gudbinin inkastoo soo fadhiisa laakiin dadka oo kala dhashay macnaha qof hadli kara oo dadka macnaha wax gaarsiin kara wax walba ka hadli kara iyo qof macnaha aan hadal badnayn dadka kale ahaa waa abuuris ilaahay macnaha marka laga yaabay muddo haduu joogan inuu la qabsado marka gabar ayaa qof aad u hadal badan ah oo macnaha markii la yiraahdo in camera hor imaado bulshada wax u sheegtay inta badan waxa ay soo fadhiisay wiilku waxa ay keentay waxa tiri ninkeyga waa kan wax dhibaato ah kuma qabo hay ka waran ahday waa okay yiri waxaan ka codsanayaa dadka inay faragelinta xitaa taa hadda wax ku dhex daro fanaaniin badan oo heesahooda aad jeceshihiin fanaanka dhabta ah inta badan marka laga tago waayahan dambe oo social media iyo hadallada lagu bartay oo tababar badan ay qaateen fanaaniin badan oo waxaa jira dhanka hadalka aanan ku fiicnayn ilaa ay hadeertaan marka la wareysanayo xitaa laba kelmadood aanan dhihi karin markay mikrofoonka qabtaan ay heesayaanna aad isleedahay ninkan muxuu ahaa ma wax kala markuu mikrofoonka qabto laakiin hadalka kuma fiicno haye waa hibada ilaahay marka qof si ilaahay uu qof hadal loo siiyaa qof inuu marka waxa ay in badan ay ka macnaha committee ay loo galay wiilka macnaha saas soo yeelatay gabdhaha eedan ujeediyay wiilka aniga lagu guursan lahaa saas yeeshay inta soo yeeshay marka way soo fadhiistay wax badan ay ka hadashay marka committee marka dadka ma jawaabi kartid wax waalin la tagay macnaha inta soo qof marka iyadoo committee qaati ka taagan waxa dhacday in la soo wacay telefoon wiilka ayadoo saqla xil ay tahay oo la jifaa qarrac afrika joogta aydaha hay ya soo wacay qof yurub joogo hay oo gabar ah hay وقبر كسوي يوروبا جوجا دل كسان كجوجا ويلك أنا أقول هذا تعدي أنا أقول ستي دعوة سبب الدعوة قب وراني أنا حسق نحن جوجا وانا جبناي حتى هذا الدعوة قب تحت ومية مكايلة معناها سببتها أقول ستي حق مولا لكن اسكوي دي سما ومالها حق ومالها ما دام قبرتها ويلكي يقول سله ما حاجة ويلك ما يقول له كنا جبت هذه ما على قصتها وقدرت أنا تدري معناها هذه وقاوتها ويلك حتى كبعد إن الصوع هذا ما عرق ضدان بعد كاب أدي نفسي أكون بينه ما تكعبره مركا قبل ما أنا ده سيد وكال ده سبحان الله هبل إن لا داودان حالي حبينك حالي هبين إيه حالي طريق أنا يا باركي هذه أمين اللي حسا إنه تاجبر بايصاب عادي بحيث لما بركع الشارع ويقول ماضي أنا نجح لي جوكتنا وأجهي marka waxay tiri walaalay waxaan ku soo wacay tiri dan kala kuma soo wicin wiilashii waxay tiri anaga ma gursan lahaa wiilkii waxay tiri aniga gursan lahaa baad iga qaadatay oo adiga iga gursatay dhahday waan yaabay waxaan iri abaa ay hurdana way ugu jirtaa waxaan iri walaalay dhageyso aniga hadda waan hurdahayaa markuu waagu ii bariyo isoo maxaan ku soo wacay haddaan kula hadlaayay tiri walaalay ana waxaan dhahaa dan le koodhi aniga hadda waan hurdahayaa telefoonka iga jaro way diidanay jarata telefoonka wax aniga la igu maagan yahay baan garanayna horta qof aan wax ka wata ma jiro qof deyn igu le ma jirto qof aan maanta wax ka samaystay ma jirto ma fahamtay aniga nin baan guursaday calafkayga iga ama ha iga yaraado ama ha iga weynaado anaga isku qanacsan Soomaaliya anaga iskeen u kala tagnana calafkeena dhamaad hadaan sii wada joognana calafkeena isku kaana geeyay ma fahamtay wiil yar bay guursatay dartiina aniga kuma kala tagayna dad caybad sheegaysana sagaay cay soo qotaan sagaa ma ku kala tagayno war aniga dad meelo kor jiro maxaa ka sheegaysaa oo dibada jooga dhagaxley dad aan isla joogno oo waxaan arkay markii aniga ila joogaana ii qoslayaan markii aniga iga dhaqaaqaan aniga saa ii haysto ee xamanay ma fahamtay aniga isaga markaan wadaadkayga wada socono magaaladana dad waxaaba jira anaga nagu mashquulo alaabtay haayaan hada dhulku sii deynaa macnahaasna waa fahmi waa hortay dhagaxley laba is guursan jirtay waa la is aroosan jiray nin naagta way isla socon jireen والله هر وحن قردان حنوص إسبتالك إيه راح تعمل ده هدو إسبتالك إيه راح سانا نروض وفيرنا سلانت أورمية لا تقول صعدانين كيس كلينا تيروان إسبتالك ده حنوص ده حن له صاحي وإرث كيوس كان يقول كلاي ما فهمتي وركا سوالي فربنا وحاجة تقبل أولي بالصوماليات وميلو بتجو وأنا سو عينا وأنا أسكن منها هي عبد القادر ما حكى قبح حناقة قبح هذا في حناقة يا حناقة
gabadha soo cusub dulminida oo rag saameed war adi maxaad ugu fogaanaysaa gabadha la soo calweeyay ما gabadha waxa diida deer saddex Cabdiqaadir oo gurigooda jooga Cabdiqaadir waxa laga yaabaa gabadha sidee ka mid ah family xiisaa wararka boqolkiiba 99 waxa YouTube-yada muxuu aisha commentiyada ka bixiyay ku xiran inta badan dadka garab istaagan waa gabar marka hadii ma xanaaqsan gudaha gabdhaha ma waxa xanaaqsan hadii laakiin gabadha sidee ka mid tahay family xiisaa waxaan leenahay aad oo maasan tahay laakiin dulmire cad tahay ها أنجد كله أنا أقول بنين غير إسلامية ده فرح كقاد نكتب كلام ده إسكابه أو أبو حرم مجال ده إيه يكون سهل عبد القادر ما توعق بينا معقبة عليه جودة أنت بدن حتى رياكشن كمركل وسلامنا ويلو حكمت أن هاي جود هان قار هان أنيجا تذكر أديه كتاجسن وحبك هم قاضيان وحكولنا هاي هيك لو نستو وبدي غير بلادي كلا سيو إن شاء الله إذا الصوماليين وبدنا كتاجسن جرها أركن أنت حول يكون بيدك وسوقرتا نتيجة نوع بصدق مركز تاجي برمش كعب سنة سابع لا احنا فيلمية صاحبي على أرض مركز اللي يراد الصومالي أنت بدن هذه هذا وحجرب سينا سعيدة صوما أنا لكن سجود أهم بوحنك سهر جدا Soomaali dad xun iyo dad fiican oo isugu jiraan dadka social media commentiyada ka bixiyana dad wanaagsan iyo dad xun buu isugu jiraan annaga naftirkeena xitaa inta badan waxa arkaysaa in dadka qaar ay noo soo qorayaan comment qaldan iyo waxyaabo qaldan qaar isaka aflagaadeynay waalidkaaga gaarayo adiga ha u jawaabin marabtaa inaad Soomaali ka guuleysatid marabtaa inaad guul gaartid ha u jawaabin cidna ha u soo fariisanin oo hadhiin heblaaya saas tiri hebla saaniri hadhiin saan yeesan guusha ugu weyn waxa gaaro waa qofka aamusnaanta badan qofka aanan inta badan jawaabaha bixinin u fiirsada bulshada dadka caanka ah inta badan hadii su'aal ahaan adigoo fanaana uu fanaan kale uu wax ku yiraahdo waa suurtagal waa asaagaaga oo u jawaabi kartaa waa dhigaaga laakiin qof taageerayaashaada kamid ah hadii aad wax kala kulantid hadaa tiraahdo wallahi ana wasala dhahay oo u jawaaba hadaa tiraahdo adiga guul darro ku tahay mana aadan guuleysan qoysaska isqaba oo hadda gabadhan istar ay kamid tahay ee dadka la midka ah adinka u bareeray ina isguursataan dooqaadinka iskale wixii la rabo bulshadu way idin dhihi karaan falcelinta laakiin hadaa tira aniga waa u jawaabaya maalin walba adigana jawaab ayaad ku jiraysaa qof wax ku soo dhaxa ayaa u jawaabaysaa laakiin hadaa rabtid inaad guuleysatid oo aad ka guuleysatid aamus comment haduu qof ku soo qoray oo kugu soo aflagaaday aniga dhowr jeer hadaa aragteen family xiisaa wararka ama sawir aan community-ga soo dhigay ama video aan soo dhigay dad badan oo aflagaaday ii soo qoraayo waa aragteen saafilay jawaabta aan si wax kala maaha walaal aniga kuma qooro erayadaasi wax la midka ah aadna wad u maadsan tahay aniga amaana u qoray qofkiina wuu isoo aflagaaday bulshadii maxay u jeedaan in qofkan uu soo caytay adigana aad wanaag ugu bedeshay way ka guuleysatay qofkaas isaga xishoonayo ama hadii kale comment aan bulshada inay arkaan wanaagsan inuu soo qoray meel waxa jirto saddexda dhibcood ee saas ah ayaa waxa ku jirta meel ah qofkan uma rababa batatan umana qalma inuu arko fariimahayga iyo fiidiyoyadeeda iyo messageyadeeda waa inaad guud ahaanba ka joojisaa inuu arko muuqaalkayga qofkaas video walba aad soo dhigtid ma arkaa YouTube-kaaga la soo dhigay adiga maamuli karo jawaabta aad bixisay su'aasha qofkan ama aflagaadada qofkan uu ku soo aflagaadeeyay in kale oo ka badan oo aan waxba ka ogeyn ayaa arki karto marka jawaabta bixinaysid marka maalin walbana heblaay ma loo soo jawaabaa anna waxa u qoraa wallahi billahi taala hal ii soo jawaabay dad badan ayaa waxa ku dhiirigelinaysa inay ku soo aflagaadeeyaan ma rabtaa inaad guul gaartid ha u jawaabin cidna ha soo fariisanin commentiga ha u gelin aflagaado hadaa tahay qof ada u bareera ina bulshada soo hor fariisato ada bulshada isdhax keenay hada bulshada isdhax keentay u dadaal Cabdiqaadir isku mashquulka ma dhawa hada waxaan u jeeday toddobaadkan walaasheeda fanaanadeeda qaaliladan oo yaani isha dad wax dhahay u jawaabayso warga badida maanta fi hada uu soo jawaabo dadka qofka bil aadan maanta qofka kala taagan yahay oo kala taagan yahay mar un kale nafsi shaydaanka kugu xiriiraan anigu kalley ma jecli in muxuu ahaa ishag loo jawaabo social media loogu jawaabo sababtoo ah inta ereygaas ku dhaxday macnaha
in badan oo aanan ogeyn boqolaal iyo malaayiin kale oo Soomaaliya ayaa arintaas wax ka ogaanaysa marka ma qurux badna inaad qof u jawaabtid marka laga badbadiyo oo arin xiiso leh ama xasaasiyadeeda leh ama adiga aad dhibsatid hal arin ka jawaab laakiin ha ku dhiiranina dadka social media soo galo ina mar walba qof u jawaabtaan hadii kale qof kale ayaa wuxuu dhiirigelin helaya kii kale oo xumaama aragteen ama tii kale oo macnaa isha rabtay inay yani wax soo dhahdo aabari wax ku soo dhayso ayadana jawaabi ka sugayno way bal waxay dhahday koronto yara fanaanada fanaanadeena bal arinta muxuu isha ay dhibsatay oo aad ay cabashada uga muujisay keentana inay aad uga xumaato bal ila daawo adiga naftankaaga qofkaan markuu ku dhahayo ma dhaleysaa tahay ama ma dhaleysid isaga garantiin miya inuu dhalaayo because haddii aa hore u dhashay xitaa waxaa laga yaabaa inaad dhalin dambe aada dhalin sababtoo ah hadallada qaar ilaahay wuu fiiriyaa qofkaas aad baan uga xumaaday dhowr qofood hadda ka horena saasoo kale la iisoo qoratan ma dhashay miyaa horta aniga marka koowaad waxa aan la ooyay waxay ahayd ilaahay labadeena qofoodba inuu sameeyey asagana inuu sameeyey anigana sameeyey garantiina uma haayo inaan aniga dhal doono inaana dhal dooni asaga garantiin uma haayo marka aniga qofkaas waxa u baahanahay hadduu videogeygan arko inuu cafsi weydiisto hadduu idhaho waa kaa qaldamay iga raali noqo anuu dambiga kale ilaahay kama uusan gelin waa cafi karaa laakiin hadduusan arkin asagay u taalanaba eba ma cafin doono waxay ahayd fanaanadeena qaaliladan oo aad uga xumaatay erayo dadka qaar ay inta badan ay ku dhaheen ayada sida muuqaalka aad uga jeedeen aad bay runtii uga xumaatay bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay ka daaya qoysaska isqabaahe mashquulka ka daaya fadlan reerkan adinka uma dhaqaysaan ayaga isdoortay labada qofood ayaga isku isku qanacsan laakiin hadii aad faragelinta ka badisaan waxa suurtagal ah qofkii in muxuu arin oodina ay ku noqoto ama saameyn ay ku yeelato marka isku daya dadka kale ee qoysaska isqaba adinkana waxaad isku daydaan 100% inaydan mar walba jawaab iyo falcelin aydan ka bixinin qof walba waxa uu idin soo dhahay sababtoo bulshada wuxuu isugu jirtaa labada dhinac dhanka wanaagsan iyo dhanka xun inta wanaaga jecel ayaa ka badan inta xumaanta jecel marka inta wanaagsan ereyadooda iyo dhiirigelintooda ku farxa inta xun hadii ay idin saameynayaan qofkaas hadii uu YouTube yahay waxa dhahdaa qofkan dambaha uu ogolaanin in macnaha uu arko YouTube-keegi videoyadiisa inuu comment ka soo bixiyo iska badaay xitaa ma arki karo marka dadaala qoysaska Soomaaliyeed garabkiina Allah galayaan leenahay aad baan ugu duceynaynaa Cabdiqaadir u duceey qoysaska Soomaaliyeed horta ilaa iskeena qof ragelinta Allah ka dhaaf anaga dhamaanteen aan isu soo duceyno dibita u doona tan iyo inta aan dib barnaamij la mid Cabdiqaadir soo gabagabeeyo sida ay nabadgaliyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh